إذا كاشي waxaan kala hadlay hadad garasho leedahay waxaan kala hadlay wax ku saabsan taariikhdaasi oo ah war aniga ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay Soomaaliya waa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya waa noqday waxaan rabaa inay i sheegto adigu maxaad noqotay adigu caasimadda aad leedahay hadad nin Soomaaliya tahay oo saameyn ku leh bulshadan ii sheeg muqdisho aad leedahay ma Hargeysa aad leedahay ma Burca aad leedahay ma jamhuuriyadda Djibouti baad leedahay meesha aad adigu saameyn ku leedahay ii sheeg tusaale kale ku soo qaadaya markaynu ka hadlayna hawiye waxa soo hadal qaada dhaqaale war adigu ma isgaarsiinta goolis baa leedahay ma telesom baa leedahay ma hormuud baa leedahay bangiyada ma salaama bangi baa leedahay ma dahabshiil baa leedahay ma Taj Express baa leedahay ganacsiga ugu weyn ee isgaarsiinta iyo bangiyada miyaad leedahay haddana caasimadaysan walaalkayo haddana hel magaalo ay ku nool yihiin 1 milyan qof oo daarad aad ii sheegi karin ya haddana isgaarsiinta qaranka iyo bangiyada aan lahayn ya haddana caasimadda koowaad intii 23 lahayn ya haddana dawladaha xorta ah ee Soomaaliyeed sida Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya aan midna lahayn hoggaan mataqaana aad ku waxay waxa aniga aad caawintay in soo fariistay ilmuhu kasto wax xisho darro weey hadhowna waa ogaa doodda markaan kula galo waxay dhihi doonaan nimanka ma jartay daahir wuxuu la doodayay nin warsingiliyaho saynta nooga yaala waxaasay meelaha u sheekay doonaan laakiin kaba saareyso nin abqariyaha tahay nin aftahana tahay ninka soo jeedo gobol laga dagaalama tahay way laba daqiiqo dhiman marka waxaan ka rabaa inaad soo adkayso war aniga Cabdullaahi Ciise Maxamuud baan kugu hadlayaa xorriyadii baan keenay waxaad i sheegtaa nin daaroodo xorriyada keenay inuu gumayso u shaqeeyo mooyee waxaad i sheegtaa nin tagay oo inta ilbaxnimadiisa ay geysay qaramada midoobay ka hor qudbeeyay ee riskiga inta la eg dalka gumaysto ku jiro u bareeray waxaad i sheegtaa sababta ay ku dhacayso in markii laga soo xornimada la soo qaatay ra'iisul wasaarihii dawladda daaqiliga laga dhigo Cabdullaahi Ciise Maxamuud caasimadda ee Muqdisho ahayd adigu xageed joogtay aaway caasimadaadii aaway maxaa xilku qaban weyse maxaa haddana keenay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya historyga inuu hawiye noqday iga jawaab su'aalaha su'aadda uu sii celinayaa caasimadda daarad leeyihiin 1 milyan ku nool qof 4 milyan haysta aniga caasimad ah ay ku nool yihiin maxay caasimad saddex caasimado dalka leeyahay ee lahaan jiray hadda ma ahe Burco iyo Hargeysa iyo Muqdisho tee daarad leeyahay iga soo jawaab waxay soo joogtaa ya daarad umatilaay qaramada marka la tagay ee la soo qaaday gobonimada Soomaaliya yaa ku jooga adiga hebel baa i jooga shacabka ku dhageystaanay hadda waxaad ka jawaabi karin markaasi ma wada murmi karaan weligeed ma wada daaqi jirin dayre iyo cawle ya dawacaduna loo ogdishay dawac wareegtaa la yiri ka soo jawaab daayir waa noo dhammaaday daayir shantiisa daqiiqo qaad kulley balanta waxay ahayd 10 in lagu kala baxo iyo 5 laakiin shiinow dhowr su'aal ayuu daahir ku weydiiyey taa ay dhalinaysa in 5 daqiiqo oo extra ah ku darno wareegiinii afaraadna markaan qiimeynay weli waxaa hogaaminaya shiine oo markii afaraad 320 wata laakiin wareegan ugu dambeeya qofkii natiijo bata dhanka kooniska ayaa natiijada ugu dambaysa laakiin doodda hal saac ay soconaysay doodda hal saac ay soconaysay ma dhawa okay shiina qabsan may balantu waxay ahayd 10 iyo 5 marka hore waxaan ku heshiinay adaan fahmin marka hore waxaan ku fahanay 10 aan ku furaynaa kadibna waxay ku socon doontaa doodda 5 iyo 5 oo hal saac ah taas ay balanta adaan fahmin markii hore waxay ahayd 10 iyo 5 wareegii kood waa dhamaaday okay daahir horta wuxuu yiri su'aasha uu weydiiyay marka uga jawaabo Muqdisho 4 milyan baa ku nool daahir oo 4 Soomaali weeye inaad taa ka tagto ma haboona raxaweyn inta ka joogta iyo inta hawiye ka joogta waxa laga yaabaa inay isla eg yihiin afkana waxa ka maqlaayay dhowr jeer adoo leh caasimad weeye caasimad macnaheedu inaa fahantaa muhiim ah waa meel Soomaali ka dhaxaysa weeye daarood inta ka joogta maanta adigana kuma tirsana anna ima tirsana hawiye inta ka joogta adigana kuma tirsana anna ima tirsana marka caasimad Soomaaliyeed weeye Soomaali oo dhan baa joogta safaarada jooga ajnabi baa jooga Hargeysa sidaas la mid caasimadda Somaliland weeye Somaliland siba isu xijinaysaa laakiin waxaan ku sheegayaa Somaliland anigu majority baan ka ahay
somaliland ninkii xornimadeeda keenay baan ahay waxaa lahayd waxa nin baa ka hadlaysay cabdullaahi ciise waa nin soomaaliyeed buu ahaa ingiriiska cid baa tiriya u adeegtay markaa leedahay oo la shaqaynaysay gumaysti cabdullaahi ciise dowladda soomaaliyeed oo xore uma shaqaynaynin talyaani buu shaqaynayay waa inaad taa fahantaa muhiima daakhiliyadda lagu sheegaya waa gumaysti waa administrative hoose oo talyaaniga hoostigayuu ahaa haddii cidii la shaqaynaysa marka isagaa la shaqaynayay 13 nin oo SYL 9 ka mid ah daarood bay ahaayeen maskaxda ku dhalatayna cismaan keenadiid buu ahaa keenadiid waa garanaysaa hore ugu sii socon mayno waa ninkaa garanaysid ninka ku rafatay oo jaale maxamed siyaad barre inuu ku dhintay Nigeria waa ognahay sidoo u dhintay inuu macaan lahaa waa ognahay meeluu ku dhintayna aduu garan maysid hana ku dambaabin nin wadanka xoog ku qabsaday buu ahaa xoogii baana looga saaray waa caadi weligeeda ka dhacdaa caydiid baa kusoo noqotay xabad baa ku dhacday xabaddu ma isagoo Ethiopian la diriraya isagoo Mareykan la diriraya ku dhacday kuma dhicin isagoo isbaara taagan oo Cismaan Caate is haystaan xabaddu saas ku dhacday isbaaro waa ina bahalkaysaa fiican moogtahay isbaaru taagnaa isbaaro filada ma joogin yaa kuusoo halgamo xornimo kuu keenay waa tiri war sayidka waa hayo axmed guri adoo sheegtay arkay sayidka ma sheeganaysaa sayid maxamed cabdulla xasan ninkii taliya ingiriisku markuu ku duqeeyey markuu wax kale u waayay uu ku duqeeyey diyaaradaha weeyo oo afrika taariikhda saa lagu galay waa ayo sayidku cabdullaahi ciise oo xukun daakhili oo talyaani u shaqaynaya intaa la soo hordiso sayid maxamed cabdulla xasan boqortooyada ingiriisku waxay ku bariday markuu koofi ka dilay war sayidow sida boqorada carabta wadanka aan ku qabtay hayso oo aala daaroodiya sida aala sacuudiga ugu sameeyey oo reer aala nahyaan aan imaaraadka ugu sameeyey aala daaroodiya aan ku sameeyo kir buu yiri Soomaali waa sinaanaysaa maalintii hadduu yeeli lahaa dhamanka iga dhulka lahayd sida carabtu isu salaamto ama halka oo kale iga salaami lahayd ya wadankana sidaa baa ku saari lahaa laakiin Soomaali inay wax tahay oo mid tahay baa anoo ku qaracsanahay Somaliland ba isku dhadajinaysaa Somaliland hawi xagee ka tigaa marra waxa ku hadlaysaa marna irir Soomaali iyo aadaysaa hadba cid kala sheeganaysaa raxweyn taariikhda ma sheegto isaaq taariikhda ma sheegto anu tan daaroda iga badan ma soo koobi karo daarood hadda waa canaanaya sababtoo taariikhdii maxaa waa kala ilowday dama xafidi karo waa buwaag waa wixii iskuulka lagu dhigay jiray weeye anu ma xafidi karo wax badan weeye taariikhdana waa leedahay adaa ila leh ina ku faanto weeye sayidka marka Belgium ka joogto dad kala hadlaysid waa ina u sheegto tira badni hadii laga hadlo waxa sheegaysay dahabshiil baa jira kana jira dahabshiil in saaqo weeye waa in allo xisiyay hebel kala jira yaa leedahay tiri wala SJ baan leeyahay SJ ila maalintii lacagta la furay intee milyan oo dollar bay diday dahabshiil ma diri karaa golista xawaaladaha sheegaysa ma diri karaan adeeg ku siinayay hawiyo dhanbe soo quudisay annaga nasiinaysaa ina umhad celisay daadan bisadahayn iyadaan leeyahay SJ baan leeyahay dahabshiil wax ku soo diro waa kaas jimcaha sheegaysa wax ku soo diro miyuu kula jooga waa maya ma bixin karaa inta ma bixin karaa bixin karto ma bixin karo ya ma bixin karo waa ina maaragtay saa ogaatid weeye waxa leedahay kanaan leeyahay abahay baa guri laha anaa dameer la dhaanta maamaayeen weeye war farmaajo waayo xagee ka tarin jirta muqdisho sheegayso nin ku doobinaya maanta waayo farmaajo waayo ma sheeganaysaa hadaa sheeganayso de Soomaali wax ka oranaysa farmaajo waayo aniga ra'iisul wasaarayaasheedii inta oo ra'iisul wasaaraha leeyahay Umar Cabdirashiid shalay markuu ra'iisul wasaare ahaa oo Xasan Sheekh madaxweyne ahaa waa la tartamay kusigu ku qabsanay Cabdiwali Gaas Sheekh Shariif waa la tartamay kusigu ku qabsanay rag hal nabi ahaayeen probleme 8 milyan buu ku soo ururay markuu hadlayo anu tartami maayo buu la soo istaagaa anigu tartami maayo walaalayaal soo dhawaad anu tartami maayo markay ma aan kusiga kale inuu geeyo laakiin ra'iisul wasaare soo tartami jireen waa ka kugu dhacay shantaadii daqiiqana waa dhamaysatay daayirna waa ku maqlaa anaga xawo waxaan u leenahay in qof walbo Soomaaliyeed ama qof walbo daarood iyo hawiyo matalay in aan si qurux badan u soo dhaweyno shiinow si qurux badan u hadashay daayirna meega waa qabsanaa laakiin waxaan jeclahay
mar walbana inay natiijada iyo aftahanimada isla socoto siduu daahir u hadlayo quruxda badneed iyo siduu koonis u helay iyo siduu shiina u hadlaya asagana koonis u helay intaba waan sheegaynaa anagoo cidna u eexanaynin daahir waa saaxiibkeyga shiinana waa saaxiibkeyga marka intaanan daahir meega uusan qabsanin aanan ku soo dhoweynin natiijada markii shanaad waxaa hoggaanka wada shiina oo wata 492 coins iyo daahir oo aanan wax saa ka fogeyn asagana haysta 106 coins daahir meega ku soo dhawaaw 5 daqiiqo waayahay shiina waxaad u malaysaa inuu hadba madaxa geedaha mataqaana la gelayo shiina waxaa u malaysaa inuusan lahayn legacy oo iga sheekeeyo oo taariikh gobonimo doon ah shiina wuxuu yidhi maxamed siyaad barre ma ogida ha ku dambaabin laakiin wuxuu leeyahay jaana ciidiid baa isbaaraha soo taagan ku dhintay siduu asaga joogay oo kale horta ciidiid baa isbaaraha soo taagan xabad ku dhacdo waxay lamid tahay wixii ay lihi jireen tolkaaga ciidiid baa laftiisana soo kufsaday oo isku dhiibi jireen qaxootiyada ay lamid tahay shiinow haddaad doo taqaano magaalo soomaaliyeed way tahay muqdisho laakiin waa magaalo hawiye su'aalihii aan ku weydiiyey hal xaba igamaad jawaabin oo ahayd war may leeyihiin daarood baan ku weydiiyey magaalo ay ku nool yihiin hawiye ha joogo marxaweyn ha joogto daarood may leeyihiin magaalo ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof oo ku taalla dhulka xorta Soomaaliyeed waa ka jawaabi weyse waxaan ku weydiiyey su'aalo badan oo ah daaroodku may leeyihiin bangiyo iyo isgaarsiin daaroodku may leeyihiin caasimadii hore ee dalka iyo caasimadaha maanta hal magaalo ah jawaab bay u baahanta waxaa kaloon ku weydiinayaa noloshantii dalka ka faa'iidsanayo maxaa daaroodku qasbaya taariikhdooda inuu noqdo kursigaan ku dhegay kama degayo halka maray qabtaan mase ii diidantaa libinta ku saabsan cabdullaahi ciise inuu xorriyad kursi uga degay aada caddi inuu xorriyad kursi uga degay cabdiqaasim kursiga inuu xorriyad uga degay shariif sheekh axmed kursiga inuu xorriyad uga degay ilaahay kuma saba diidaya xas sheekh kursiga xorriyad uga degay laakiin aad ku disheen cabdishiid cali sharmaarka kursiga aad ku disheen maxamed siyaad bare laga fuji waayey qaxooti ku dhintay xoog looga saaray cabdullaahi yuusuf etoobiya gumay soo watay xoog looga saaray qaxooti ku dhintay farmaajana maanta laga fuji la'ya waxaase walaalow miyaad ceeb u aqooni waad iga soo jawaabi doontaa maxay kuba hawiye markasta kursiga uga degaan oo gobonnimo iyo dimuqraadiyadda ay u raacaan kuwa daaroodna maxay isugu dhejiyaan oo kursiga looga deji la'ya waa su'aal inaad iga soo jawaabto oo shacabka ka qanacsan doonaya geedaha madaxa ku garaacin intaasoo su'aalood ayaa hor yaalla ragga ugu caansan Soomaaliya ragga gobonnimo doonka ah ragga dimuqraadiyadda u shaqeeya caasimadaha dalka waxoo dhanba maxay hawiye u leeyihiin Ethiopian bay la dagaaleen Maraykan bay la dagaaleen huwantiisii ya way dhifid gareeyeen ma ii sheegi kartaa gobonnimada oo u dagaalama nin daarooda ma ii sheegi kartaa sababta ragga daaroodka madaxweynayaasha soo mara ay kursiga ugu dhegan yihiin oo kaligitis yihiin oo loogu dilo ama qaxooti looga dhigo ya ma ii sheegi kartaa hawiyaha kursiga inta ku dhigay lagula dagaalay ee xabad looga dejiyey hadalkaba anoo 5 daqiiqo gaarin ayaan kuu soo koobayaa bal intaad analyze garayso ya su'aalahayga si dhaba u diris aniga kuma dhihin raxweyn baa degan caasimadda iyo daarood baa degan lama waxaan ka hadlayaa magaalo daarood leeyahay oo ay 1 milyan oo qof ku nooshahay shiina ma jirta waxa weeye su'aashaadu waa magaalo hebel maya ma jirto haddaysan jirin haddaba 4 milyan magaalo ay ku nooshaha dad Soomaaliyeed ay hawiye leeyihiin waana Muqdisho taas waxay ku muujinaysaa inaan ahay ninka adiga markasta kaaga horeeya Soomaalinimada ninka ugu timid Soomaali sida aad sheegtana hadalkaaga ku jirta inaad jabarti tahay oo carab tahay oo Soomaali ahayd adiga afkaaga nooga sheegay marka nin qaxooti yaata mid ku saabsan doobirad direed ayaa dhashay daarood anigu fikirkaas ma qabo taariikhna kuma hayo waxaan qabaa daaroodkaani in gabar shaqaalaha oo meesha si ku guursadeen qolada ahaydna aan la ogeyn inay sidaasna ay mataqaanaa hadda iska sheegtaa doobirad direed naag la yidhaahdo taariikhda kuma hayo su'aalaha iga jawaab muxuu dadka madaxda ah ay kursiga ugu dhegaan maxay kuwa hawiyaha dimuqraadi u yihiin caasimad ma leedahay
magaalo ay ku nool yahay 1 milyan daarood ma leeyahay bangi iyo isgaarsiin ma leedahay waxaasoo dhacdo iska indhatirin adoo ismaqiiqin adoo SJNina wuxuu yamaaqan ku mashquulin anunina wuxuu yamaaqan akoonkan waxa la igu sheegay akoon ay daarood dhalac ku aruursadaan oo la yiri hawiyaha nogala celiyo sababtoo ah inta arkay anigu waa arkaysi inta qof hawiye ah ee caawk ii soo diraya giftiga ya oo akoonadooda iga soo diray laakiin waxaan arkaa adigu hal qof oo ama nina wuxuu ahaada ma ogi SJ la yiraahdo oo wax ku soo dirayo oo la soo ballamay oo lacag lagu soo shubay laakiin anigu waxa arkaysaa anoo cidna balansan dadka siday wax igu soo dirayaan ayaad u jeedaa dooda hore u gal waa ka bax daayri shiine waxaa idinka codsan lahaa taariikhdiina out of topic ha noqoto yani dadka meeshan ka maqan taariikhdiina ha ku koobnaato daayir waa mahadsan tahay si qurux badana u hadashay si sharaf leh intaanan meega u dhiibin shiine waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarta sharaftay qolkan oo giftiyada ii soo dirtay sharaf iyo karaama idin leeyahay taa markaan ka gudbo daayarow si qurux badana u hadashay si sharaf leh u hadashay waxaan jeclaan lahaa markaana shiina inaan u dhiibo maadaama daayar uu waqtigiisii ku dhammaystay su'aaluhu qabay iyo doodiisa wareegeeni 6aad waxaa aad baa laiskugu dhow yahay koonis aan weli waxaa badan shiina oo haysta 529 iyo daahir oo in yar u jira asagana haysta 423 daahir aad u mahadsan tahay shiine waxaa noo bilowday 10 daqiiqo halkii saacaan soo gabagabaynaynaa shiino waxaad haystaa 10 daqiiqo waa markii shishada daqiiqaan ku wadaynaa maadaama ay daahir shiina intaba iga codsadeen ay isku raaceen shiinow daahir su'aalo badan uu ku weydiiyey waxaan jeclaan lahaa 5 daqiiqa 3 daqiiqa ugu horeysa inaad su'aalihiisa ugu jawaabtid wixii markaa fikri aa qabtidna aad sii wadid ku socda shiin waayahay horta daahir kursi la isku dhajiyo buu aad uga hadlay horta daahirow kursiga horta asalkiisa la isma amahayo waa inaad taa ogaadid kursigu tartan hawlu ku xiran yahay markaan ka hadalno dowladnimada iyo cid kursi isku laysa iyo waxa aan ka hadalno dowlad Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre Muqdisho waa ka tagay USC buu uga tagay dalka iyaga qabsaday jaartarka midowga Afrika wuxuu dhigayaa ciddii caasimadda markaa jabhadda haysata inay iyadu dowladda soo dhisto oo adduunyadu soo aqoonsato dowlad inaad soo dhistaan baa idinka sugayay عايديد قرله على قرله بكسو قبقبسين إذن التاريخ حما هالكا إذن كرنا علي صومالينا دباتها إلى إيمانتا أي كبان على هاي باقاسيسين هذا مالنت الدولة درسي لهاي أو كوهشين لهاي أو علي إيو نيكال الليها لبدي المعاديرتها أو إسليني الله أنحرست الله مرحموي ميد أوران هاي فريسو ميدو أدنا مدحوين النقو وردالكو سيدا أو مانتي ما أهالين أدنا قحوتي ما أهاتين أدنا قحوتي ما أهالين رواندو كالين هاي لكن عقلي يكشين وهاي وأنا تاوغاتي عايديد قرلة علي قرلة هايلاوي دارود ميل اسكو هايست أركي مسيد وحا أركايا دايا أدولي دارود ما متري كرتيد دارود كلا قولي أنا دارود نيما كولا عياري باميش كجوها دارود بان هاي دارود نسودان كسان هاي دادك إنا كلا براتو بقاقو في عام فرماجو دورشدي بقبن واي باتري هورتا حسن الشيخ محمود يوحا كهوريي شيخ شريف labadaba muddadu waa ku dheeraato waddanku waa waddanka iska burbursan doorashadu waa dheeraataa ra'iisul wasaaraha doorashada qabta farmaajo doorashadii wuxuu ku wareejiyay adeerka Rooble ku wareejiyay Rooble halkii sanaadiiqda waddanka inuu dhigo oo doorashada qabto ay ahayd maalinna waa ka u sii ordaya Uhuru Kenyatta mucust u xiraya maalinna waa kaas imaaraadku u ordaya oo yaa loo xisiyeelay oo 8 milyan 9 milyan kalusha xasan sheekh doorasho ma qabanay رئيسul wasaarihiisa Umar Cabdirashiid baa qabtay hadda firin raiisul wasaare xukuumad baa wax qabata waa ina taa ogaatid Sheekh Shariifna ma qaban raiisul wasaarihiisa Cabduul Gaas baa qabanayay oo road map jeexay oo wadanka ka saaray muddadii ku meel gaarka ahayd hadii cid doorasho la kufto qaban weyda adeerka baa la kufay waa ina taa ina isaga ku canaanato way farmaajo ina ku canaanato ma ummadda oo dhan hortaagan farmaajo mas'uuliyadda wareeji buu mas'uuliyadda doorashada wareeji raiisul wasaarahana shaqooyinka laga rabaa maaragtay inuu qabto hanti baa ka hadlaysaa
ورميل فكو آدم ماي وردفور بكو يلا مروا البحر كأنا كعاد كأنا عفر بقولي كنت نكون عمريسا لح بقولي كنا سيس عنا بنكيلا واحد كان على أشياء شو حتى هالك على الوجود صدري كرينين ورما آخر البوست جنا كعاد قضية حتى يقل بدك بحشتي أو واحد تري وقاعدين بالدي بك أدور ربعين الدار يسكت دستو قال بدك حجر ولا جمس وقبن كسمايا ولا جمس وقبن قال بدك حكى كعيا على قبطي جبرها برجديرة أو حاس كيسا أو ماشي الدجن بقولوا أجيفي قال ملوك باقوتي فرماج عيدا ومدرن أود أنا ما هي قال كعيو إذن كاسو قبتي أو بيد بقي وحبشي هالك جوكتي بقي فرماج أو كل قرقاتين مع عبد الله قبل سو قبتي ما فرماج عيدا صدري وهميا وأنا تا وقتي مقالة من يكونوا لي هاي أتري وروح أكو إيري ترى ما بقول هالكرابة سومالي قلبي وأفر 8 مليون لبيه 8 بقوا قاعدين لبدا مليون وصارت مليون ودارود مليون كلا تروح سومالي كله بوصاص مليون بخنو بطلان تا أركيسو 4 مليون يشم بقولوا كم بخنو دارود اللي تقرأ جبلان أنت إلا بخنو كلمة قلت يكونوا هاي جد على أوي وأنا تا وقتي توي ما هنا ما مقولة ذا لبدا ما مقولة بقى هذا هذا إذا علاك قيلني يعني أركع أوله مقدش عدد كي نجود عادي لكن كوا كانوا عمرين سؤال أي ويدي سمع علينا سؤال كويديو سؤال يرى كويديني يا داعي ما نقول بعض فيديو دوبية أضو دارو هذا كعاي أكو أركع أوله مركي أركتو قف خنيسة قبيل كيكو صناعية أضو دارو بالجيرة ظاهره خنيس سومالي مركي مقشو أورتا فين العلم حلال بامسو حاران شيء يستحم به هذا خنيس إنا أفك سوق قادنو وما لو بك سوق قادنا لا يقول بديه لكن هذا سوق قاد سؤال شيء كويدين هي خنيس دي لما قالوا ايكون قفك سومالي فؤاد بلو مايك اب سمسم ان اديركا بسو حسوسنيا aniga adaa ibaray Soomaali aanu dhinacan u qaado la adaa ibaray oo yiri gudoomiyihii habar gidirtu dooratay ba adeer u ah isagoo kaaga cabanay oo waa ifadaxayaan maqlay waa icon waa ka xunay wiil Soomaaliyeed in ka wada halaabay wiil haweena dabada dhiibo ma oran laakiin hadee waa ayaan dara dhacday weey oo idin kala murugaysanay waa ayo ninkaasi war ma daaro ba misoo in adeerka su'aashaas waa ku weydiinaya هل جنبا كهالسا هبل بهال جبي سيدك وانا دافيسا سيدك أما غير أما وحو أهاد